kulan wacan wanaagsan idil ahaantiin baa meel walba joogtaan iyo si walba isla maqalkan idiin soo gaadhay ku soo dhawaada qodobo gaar ah oo ku eegi doono siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale waraysyadii sida isba jooga maalmihii ugu dambeysay uga socday saxaafadda caalamka iyo Soomaalida taasi oo lagu eegay ama lagu waraysanayay siyaasiyiin hore oo u soo shaqeeyay dawladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale kooxaha argagixisada al-shabaab waxa ugu dambeeyay waraysigii Jamaal Cusmaan uu qaaday kaasi oo ku soo waraystay ururka argagixisada al-shabaab waraysigani waxa uu taabanayay dhinacyo badan waxa sidoo kale waraysigani ku jiray in saraakiil ka tirsan in ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka tirsan wasiiradiisa ay ku lug leeyeen isla markaana ay taakuleeyeen ama xiriir ay la lahaayeen ururka argagixisada al-shabaab sidoo kale waxa iyadana jirtay kiiska Ikraan Taxliil oo la doondoonayay ama la raadinayay meesha uu ku dambeeyay isla markaana waraysigii Faad Yaasiin waxa ku jiray in qaar ka tirsan wasiirada iyo sidoo kale ciidamada ay ku lug lahaayeen dhibista Ikraan loo dhibay ururka argagixisada al-shabaab gabi ahaanba waxaan ku eegaynaa siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeysay iyadana ay ka socdeen dilal istabajoog kuwaasi oo lagu beegsanayay xubno ka tirsan dawladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale odayaashii soo xulay golaha shacabka ee haatan baarlamaanka 11aad waxa iyadana isa soo taray kiiskii Ikraan oo cirka isku shareeray iyadoo xubno ka tirsan ehelada ay sheegeen in Ikraan noo shay isla markaana uu qabo mid ka tirsan horjoogayaasha ururka al-shabaab waxa iyadana soo baxayso ma sheegatay in Ikraan dhashay isla markaana qaali aysan dhalin qodobadaasi iyo kuwa kale oo xasaasi ah ayaan ku eegaynaa guud ahaan barnaamijkan intuu socdo daawadayaal haddii ay tahay markaadi kugu horeysay barteenan aad soo booqato channelka subscribe noo saar oo noo sii gaarsii asxaabtaada karto haddii aad horey loola joogtayna waad ku mahadsan tahay halkaas ka siiwo barnaamijka waxa igu heliyo saaxiibka Santaag oo isha ku hayay waraysiyadan iyo sidoo kale waxyaabahan ka socdo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya Santaag waxa jiray waraysi la sii daayay shalay ilaa iyo daraad socday kaasi oo uu soo saaray Jamaal Cusmaan oo ah wariye madax bannaan isla markaana uu shaqeeyo General 4 oo laga leeyahay dalka UK arrintan ayaa adkayd in ama yaani wariyaasha Soomaalidu waa ay ku adag tahay in ay soo wareystaan ururada xaq jirka ee dawladdu ay la dagaalantay isla markaana loo aqoonsiyay inay yihiin urur argagixisa waxa jirtay in wariyaashu ay ku adkaatay in halkaasi galaan maxaa u fududay Jamaal Cusmaan maxaase ay tahay xiriirka ka dhaxeeya Jamaal Cusmaan iyo sidoo kale ururka al-shabaab aad iyo aad baad umahadsan tahay ummadda Soomaaliyeedna waan salaameynaa haddii aan guda galo su'aashaada Jamaal Cusmaan horta inta la rumaysan yahay waa wariye madax bannaan oo adeecadaha reer galbeedka u shaqeeya gaar ahaan wuxuu u shaqeeyaa Channel 4 wuxuu sidoo kale u weynaa barnaamij la dhihi jiray African A oo in maaragta African dhacdooyinka Afrika oo dhan indhaha ku hayay ayuu isagana ka ahaan jiray agaasimo ka ahaa wan marka dhaqaaqo oo gala meel walba waxaan hore u ogeyn in goobo dagaal ay ka socdeen oo adeecadihii laga mamnuucay oo kuwii localka ah iyo kuwii internationalka laga mamnuucay oo BBC iyo Al Jazeera laga eriyay in uu warar ka soo duubay meeshaasina waxay ahayd dalka Ethiopia dagaaladii Tigray iyo Ethiopia u dhaxeeyay tanna waa dhacdadii labaad oo hadda maaragtay Jamaal Cusmaan uu u tagay argagixisada wuxuuna si toos ah ugu tagay mid kamid ah mas'uuliyiinta ugu sarsareysa kooxda argagixisada al-shabaab ninkaasi oo loo yaqaano Karatai marka maad Karatai waa ninkii horeyna loogu eedeeyay gabadhii Ikraan Taxliil ahayd dilkeedii dadka in badan oo Muqdisho lagu dilay oo mas'uuliyiin lahayd oo odayaal lahayd oo sanadiin lahaydna ninkii ka dambeeyay ayuu ahaa sababtoo ah marka Karatai inay dadku yaqaanaan baan filayaa waxyaabaha uu xil saaran yahay wuxuu xil saaran yahay afjabiska iyo waxyaabaha gaadmada dadka lagu dilo ayuu ugu xil saaran yahay kooxahan inta la rumaysan yahay markuu ninka uu tagay waraysiyadii Maxamedow waxa kamid ahaa ama waxay su'aalihii iyo u tagitaankiisa naftirkeedaba waxa shaki weyn Soomaalida gelisay ninkan oo reer galbeed ahaa la ogsoon yahayna mas'uuliyiintan ugu sareysa nimankani in madaxooda uu dul saaran yahay lacag aad u tiro badan oo maad Karatai uu kamid yahay xubnaha reer galbeedku ay saareen madaxooda ninka keenay in lacagta la siinayo oo 10 milyan oo dollar qaarkood ay saaran tahay dushooda in ninkan oo adana reer galbeed adeecadaha reer galbeedka u shaqeeya in uu u tagay waraysi ka soo qaado
qaaday la soo cunteeyey habeenna la soo joogay meel walba uu ku sugan yahay si kalsooni leh ayayna u sheekaysanayeen marka su-aasha maaragtay shakiga dhalisa waxaa weeye war ninkan maadaama nin ingiriisa uu yahay basaboor ingiriisa UK uu wato adeecadaha uu shaqeeya ay UK yihiin UK ay kamid tahay wadamada u aqoonsaday nimankaas ninkii madaxooda keenay lacag intaana in la siinayo bas sababtu uu ugu tagayaa u fududeeyay maxayse ay tahay ujeedka ay iyagu u ogolaadeen raggii horay madaxooda lacagta dul saaray Santiago waxaa jira shaki weyn oo soo baxay ummadda Soomaaliyeed ay isweydiinayso dawladda federaalka Soomaaliya waxay ayadana ku jirtaa dagaal xoogan oo ay kula jirto ururka al-shabaab qaar kamid ah wariyaashii caalamka iyo reer galbeedka ayaa soo wareysanaya Soomaalidiba wariyaashan dawladdu ayadu miyay wax ka qabanayeen maadaama intay u tageen si kalsooni leh ay wareysi uga soo qaadeen dawladda soo xil kama saarno qof kasta oo al-shabaab u taga ama maxalli jiray afkaartooda haysto ama soo wareysto qofkaasi ciqaab iyo xeer lagu ciqaabo ma laha dalka Soomaaliya maya waxaysan u lahayn dalka Soomaaliya horta hadda uu kala daadsan yahay awood buuxda oo shacabkeeda ay ku xakamayso oo cid taa u tagtay lagu xakameeyo ma jiro waxaan ogsoonahay asbuucii ugu dambeeyay in xildhibaano golaha shacabka ka tirsan ee federaalka Soomaaliya inay ka cabanayeen mas'uuliyiin sarsare oo ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin kooxaha al-shabaab marka nimankan marka maxamedow mas'uuliyiin sarsare oo hadda dawladda xilka hayaba oo haddaba xil haya oo dawladda federaalka ayaaba la leeyahay way ka tirsan yihiin war nimankan ay ka tirsan yihiin la leeyahay marka dawladdu tabar uma haysa nin wariye ah oo intuu dhuumaad ugu tagay maalmo kooban la joogay iska soo noqday wadankiisana warqad ayuu ka wataa inuu soo wareysto oo maaragtay nimankan soo wareysto wax la sugayay ahayd waa la soo diray marka laakiin su'aasha shacabka iyo dhageystayaasha in loo bayaamiyo u baahan baa waxay tahay nimankan madaxooda lacag baa la dul dhigay reer galbeed baa dul dhigay argagixisana la dagaalamay dhahan diyaarado drones ay soo direen maalin walba shacabka ku duqeeyaan wariyaashoodii intay soo direen bay waa la ogol yahay ordo soo wareystay leeyihiin qofka shacabka ee maanta halka ka soo tagana magaalada markuu soo garo horay baa laga xiriyaa waa la qabanaya marka arinta marka la rabo in loo bayaamiyo waxay tahay in war nimankan la raadsanayo ee dawladdu dagaal kula jirto ee ciidamada AMISOM meeshan lagu quudinayo ee ciidamada cadaanka lagu soo daadguraynayo ee la leeyahay argagixisana la dagaalayna ee diyaaradaha droneska ay isku doomarayaan haddana wariyaashoodii ay wareysanayaan oo loo ogol yahay lacagtana la dul dhigay maxay tahay xiriir noocee ayaa ka dhaxeeya reer galbeedka iyo horta nimankan in la isweydiiyo mudan waa tahay waxaa sidoo kale jirto waxyaabo waa mas'aalihii uu weydiinayay mahad kartay Jamaal Cusmaan uu weydiinayay horjoogahan waxaa kamid ahayd inay jiraan qaar dawladda ka tirsan ama dadka ugu sarsareeyo xubnaha ugu sarsareeyo dawladda oo wasiiradu ay kamid yihiin oo laga weydiiyay wax xiriir ma inaga dhaxeeya wuxuu sheegay inay xiriir ka dhaxeeyaan arrintan soo isma yeelanayso wareysigii Faad Yaasiin uu ku eedeeyay qaar ka tirsan xildhibaanada iyo golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in ay kiiskii Ikraan ama gabadha Ikraan intay u gacan galiyeen al-shabaab isla markaana wada shaqeyn ay ka dhaxayso arrintan soo ma caddo oo gabi ahaanba haatan marka la fiiriyo ma noqonayso wareysigii mid run ah aad iyo aad ba mahadsan tahay daawadayaal idinkuna waad mahadsantihiin daawashada iyo sidoo kale la joogitaanka aad noo muujinaysaan mar walba intaan barnaamijkan kan xiga aan ku kulmi doono waxay naga tahay sidaas iyo amaana Allah